هالجيو أول بالظلم يا بعض يا حق ضر إنه جسوا دولين ما تدي بيقدحين هنتدي بيبربريين قرقوا وقر الشعبه محو قلب صدي وحلا دقينا يقريها لا دمنا يسوع إسرائيل ما وإسرائيل وعرضي يا حمان مسبح كترته يا إسرائيل ولا إسر كدجال جوال كترتر ما نترتري كرايو وحوي لكن وكوجو درستي وأنا خوف الشلمي وحلايه أنت ماشي حدي يلا قاعد دمينا كربح dadkan waxa weeye anagu inaan xorownaan wax walba ka jecelnahay inaanu midnimadayada iyo dadnimadayada iyo sharafkayga ilaashanaan wax walba ka jecelnahay waxa weeye dad nabad u fadhiya gobolkaas oo camiran oo barwaaqo nabadgelyo loo fadhiyo ayay subax ciidamada halka ka soo galeen saa u galeen dhaqaalaha galay markaan ka warramo marka loo eego Afrika amba Soomaaliya marka wax laga tabcayo sida dadka dhaqaaluhu ku soo galaan anigu hooyo carruur korsanaysan waan ahaa oo ganacsato ah oo qudaar leeyahay waxa laga yaabaa markaan soo gaabiyo iqriban tabaabulshadiisa ama lacag ururintiisa inay igu qaadatay 10 sano inaan tabcay dhaqaalihiisa haddana 2 sano dhismihiisu socday oo aan quraxda u taagnaa markii la dhisayo ugu yaraan ama ugu badnaan 2 sano dhismihiisu socday haddana markuu wax yar furnaa 2 bilood waxaan gaarin iqribanna sida loo galo sida loo bartilmaameedsaday oo sida loo burburiyay saasoo tahay haddana aniga hadduu kulligii dhaafo dhulku ii soo haro waxa iiga qiimo badan inaan xurriyad helo 15 sano tacadiga iyo dhibaatada ay nagu hayeen aniga waxa iiga qiimo badan hudheelkayga dhan aan waayo inaan xurriyad helo waayo xurriyadu ninkii garanaya waa shay qaali ah guriga markaan dhisayay kaleerika cadaanka iyo buluuga jacayl aan u qabo calankayga Soomaaliya ayaan ugu dhistay inaan xidigtii cadayd ku buufiyo waana wadi waaye ilmaha yar calanka halka xidha bartaas laga toogan jiray hooyada dirca shiidka ah buluuga xidhata bashiirka lagu burburin jiray ama gaari baa dhakada laga marin jiray dadka nooca soo maray baan nahay oo uu soo karay maamulka Muusabix tacadigiisu marka aniga waxa soo dhan waxa iga qiimo guriga awalba Ilaahay baa i siiyay haddana ma hantilay alxamdulillah rabbil caalamiin waana dhisan doonaa laakiin muhiimadda iyo hadafkaygu waa inaan xoroobo hadafka aan leeyahay waa inaan xornimo magaaladeeda ku joogo oo magaalada xora insha Allah Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan xorowno oo magaalada soo qurux badan oo meel walba calankii SSC calankii Soomaaliya ka babanayo aan dhiso oo meel walba calanka kaga buufiyo ayaan Ilaahay ka rajaynayaa insha Allah Soomaaliland waxaan leeyahay waa bil Ramadaan guurtidooda wax garadkooda baarlamaankooda war aqliga ha shaqeeyaan idin leeyahay dadkan masaakiinta ee quraxda iyo xabadda aad ku baabiiseen ee daraysan lahayn ku dhimanaya ee meydkoodana marba aad ka cararaysaan war waxaan idin leeyahay 3 gobol iyo 4 gobolba waad haysataane iimaansada goboladiina oo gobolkayga noo nabadgeliyo nooga guura daraydin lahayn baad ku soo duusheen oo ku dhimanaysaane goboladayada intaad nooga baxdaan gobolada aad haysataan ee burca u sukayso iimaansada oo aqligu ha shaqeeyo oo gobolada leedihiin 4 gobol Soomaaliland idinku filan iimaansada iska daaya xasuuqaad ku shaqaysanaysaan idinkana waa la idin xasuuqayaa idinna waxbaad xasuuqaysaan marka xasuuqa intaad iska daysaan iimaansadaan idin leeyahay aqligu ha shaqeeyo guurtida iyo wax garadka Soomaaliland baa inta faraya anigu Muuse waxa farimaayo Muuse aqligiisu waa ninka uu keenay inuu markuu maatada qaxiyay guryaha duqeeyo shacab baa la dagaalamay SSC oo xorriyadooda ilaashanaya dabadeedna wuxuu tabar ka dhigtay markuu tabar kala waayay inuu guryaha magaalada duqeeyo inuu guryaha magaalada dumiyo guryaha hadda tabarti kaga soo urtay guryaha marfac lagu dhufto ayay tabarti kaga soo urtay guryaha ma kala jeclin haddaan reer Sool mar haddaan ka reebin guryaha magaalada waa dhisan doonaa iyagoo qurux badan calanka buluuga ka badanayaan dhisan doonaa insha Allah